salaamullaahi calaykum maalin wanaagsan. Bal aan idinla wadaaga qiso jacayl dhaba oo aniga igu dhacday oo aan hubo inay dareenkiina wax badan ka beddeli doonto. Waa tanaaye ku soo dhowaada. Waxay ahayd isbarashadeenna mid ku dhisan kaftan, isqadarin iyo is-ogaansho. Xaggayga 90% la hadalkeeda ii ahaa farxad. habeen kasta waxaan isdhihi jiray alla goorma ayay soo geli doontaa qadka, ma nabad qabtaa, maxaase ku soo kordhay. is-araggeenii koowaad baan ka helay diinteeda, dabeecaddeeda iyo suuraddeeda, waxaana u soo bandhigtay xiriir hadafkiisu guur yahay. dabcan way isoo dhowaysay, laakiin qof aad adiga jeceshahay iyo qof ku jecel isku dareen ma ahan. bilooyinkii ugu horreeya si fiican baan iskula jaanqaadnay. muddo kadib gabadhii inay iga cagajiidaysa baan arkay, balse waan samray. waxaan u ilaalinayay si aanan alle xiriirkiisa u ilaalin. waan isa siiyey riyooyin cusub baan dhisanayay. mar kasta way mashquulsan tahay, anigana waan u dulqaadanayaa, inkastoo aan ogaa qofka ku raba inuusan kaa mashquulayn. waxaan ku dirqiyay naftayda inay tahay gabadhii u horraysay ee Sweden ila joogta ee aan barto oo iyadoo kale aanan la helin. waxaan bilaabay inaan ka daba jiitamo oo si dadban aan iyada uga codsado inay ugu yaraan 10 daqiiqo ii hesho maalintii. waxay ila soo hadli jirta marka ay sii seexanayso, anigoo intaas yar ka dhiganayay rajo. qoyskeeda, carruurta, abti iyo xaaladdeeda inaan ogaadaa iskaga baahnaa. toos iima dhihi karin aan kala harno. markii dambe waxay bilowday inay dhahdo, axmed wiil wanaagsan ayaa tahay, ishaada ayaan ka baqayaa. 4 bilood kadib, habeen anigoo dhan kasta ka soo maray oo hadal ku daalay bay dhahday, kulama sii socon karo. anigana waan quustay. waxaan dhahay okay abaayo, qoraalkayga dambe ma arkaysid weligaa intaad nooshahay, ammaan baan ku siinayaa. taleefanka waan iska dansaday, laakiin iyada ma aqaan go'aankeeda waxa beddelay. meel kasta ayay igala soo hadashay. wallaahi ilaa galabtii xigtay oo dhan way i tuugaysay, axmed madax adeega iska dhaaf, ila hadal. markii dambe baan isdejiyey, ileen qof intaas soo bilood iska dhibaatoonaya baan ahaa. waxaan bilaabay inaan warkeeda iska hubiyo. waxaan ku xujiyey inaan isku aragno magaalo ii dhow oo ay safar soo gasho. way imaatay, kadibna hadiyado bay ii keentay. wixii horey u dhacay ayay iga raaligelisay. muddo kadib inaan isguursanno iyo ballamo kale baan galnay. jawi farxad iyo reereen leh ayaan wada qaadannay. habeenkaas mid xasuus cajiib ah leh buu ahaa, oo magaaladoo dhan baa isla qoslaysay. wax kastoo ku saabsan nolosheennii hore waan iska waraysannay oo waan is-aaminnay. waxay u noqotay magaaladeedii, iyadoo taleefanka saacado igula sheekaysanaysa, ila dhisaysa nolol midda ugu qaayaha wacan ee mustaqbal. jahwareer cusub baa halkii ka bilowday. gabadhii markay u noqotay gurigeedii, war ma leh, 3 beri kadib kaalay adigaaba sheegaya. anigana fikir iyo maxaa helay, intee gashay, goormee codkeeda maqlaysaa baan ku qaatay isbuuc. kadib bay maalin daqiiqado kooban snapchat igula hadashay. maalmo markay maqnaataba sidoo hore oo kale ayay bilowday inay 10 daqiiqo iyo waan sii seexanayaa idhahdo. anigana waa qoftii isku kaa soo dhibtay, bal wax yar isaga dulqaada baan ku celcelinayay naftayda. habeen bay si kadiisa ii dhahday, jacaylka hadduu wareero, walaalnimada ka fiican. axmed waa iga go'aan markaan inaan kala harno ayaan qaatay ayay dhahday. anigoo naxsan ayaan si lama filaana ku ogaaday hosbitaal ay isniinta ku lahayd balan dhakhtar. waan safray si aan u soo xalliyo arrinta. wallaahi waan hargebsanaa xataa. waxaan tegay maalin ka hor magaalo u dhow, asxaab baan la seexday. aragtidayda kadis bay ku noqotay. waxay ogaatay inaan naftayda ka jeclaa. kadib isbuucaas 2 mar baan wada fadhiisannay.
January 2019 baan maalin maqaayad wada tagnay, wax kastana waan ka heshiinay. Markii aan magaaladeedii ku soo laabtay, yaab, sidaan filayay wax ma noqon, mashquulkii bay dib ka soo bilowday. Isbuucyo markaan ku jahwareeray oo aan arkay in aniga bes aan ka daba cararayo, baan Rabbi tuug, salaad iyo duco u istaagay. Kadib wax aanan weligay qof kala kulmin ayaan soo ogaaday. Gabadhii aan 8 bilood iyada kaliya eeganayay, dhab u rabay oo wanaag kasta u muujiyay, iyadoo i xumaysay. Waxaan soo ogaaday inay guur hore soo martay oo iga qarinaysay. Waan isaga haray, wax aan ku tilmaamo ma aqaan, 3 bilood lama aanan hadlin. Ramadaan 2019 baan maalin u sheegay inaan weli jacayl u qabo, laakiin hadallo qaab daran bay igula hadashay. Muddo kadib waan xiray warkeeda, xusuus walba waan tiray, waan iloobay. Dhowr jeer qof aan jeclaa waan waayay, laakiin waxaan nacay inaan xiriir sameeyo ama qof kale aan la dhiso rajooyin. Sheekadan intaad daawanaysay, maxaad dareentay, maxaase ka baratay? Waxaan filayaa saaxiibayaal inaad ka hesheen. Ujeeddada aan haatan u soo bandhigay ma ahan inaan sawir qaldan ka bixiyo jacaylka, balse jacaylku waa wax jira haddii si dhab ah la iskula sido. Muddo ayaa laga joogaa dhacdadaas oo haatan waan ka caafimaad qabaa, waana ka bogsaday. Haddii aad wada akhrisatay sheekada, fadlan ila wadaag maxaad dareentay.